horta idlayara jahli ahaya ninkii warkiisa soo guuriyay asagoo lamid yahay maxaa yeelay anigu fanaan mihi wax ma baadiyeeyo idlayara niyadiisa kama hadli karo taydana kama hadli kariyo dirisle iyo ninka la yiraahdo dirisle cabdi iyo ninka la yiraahdo idle waxaan haynaa ayakoo haween ka ajaanib ah iska taabsanay hadii Allahu Rabbul Alamin saddex shay uu isiyo caafimaadka maanta aan qabo wax laygaga duubaayo ee aan bulshada kula hadlayo hadii alla ii daayo nolosha haduu iigu sii daayo adduunyada aan joogo xuriyada maanta aan haysto idlayare iyo wax lamida waxaan balan qaadaya in Muqdisho ku qaban وهرديا مقت إدلة هدف كيجا مقدشة إن أنا الشغل جو قبان أي جبر خبيثة أين إسكول حين أين مريها حوران أين أمدا إن رها دجها أين كدم باجين أين ربا إن كشق أي هدف كيجو أدو فجعي دتك سيدو الله رب العالمين أقيبيان وقيبينينا قرآن كودت كسد حقيبي المؤمنون المنافقون الكافرون المؤمنون وحليهن هبلو رج وعدد صوت كودو مركي روان إني ومد الله الله هذا الكودي هجاجيان وعدد عن أفحمين عائشة وحل يري النبي صلى الله عليه وسلم ناصفي هبلغن كيسي كاسي وحتري ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويسفح وحو أي بيتري مد عن حمان كبدلين ولكن يعفو ويسفح مدتك اسك سامحة maanta sheekh Shantaay waxa haysata oo umada Soomaaliyeed ee muslimka meel walba ay joogan aan ka codsanaya ay marqaati iga naqdaan khabiith iyo qabiithad ba madaha ay haysta gabar muslimada oo baraha bulshada ku soo gashay inay diinta iyo dhaqanka umada ku wacyi geliso inay labada ilaashadaan walaalnimadooda ilaashadaan midka kale uu ku xad gudbin cirdigiisa iyo sharaftiisa oo wax ka sheegin maanta ma haysato waxa maanta ugu dhagan waa khabiith iyo qabiithad inta xun ay xumaha ka shaqayso ayaa majaha ay haysata yaani baraha bulshada ana marqaatiya dadkii shalay dhaxdooda isdagaashanay maanta aniga micnaha waa dad aniga qaabkay aniga dacwada aan wado ay ugu hor imaan lahaayeen aqligoodii iyo waqtigoodii ay inta mideeyeen ay group samaysteen hello Kenya hello Europe ما أنت هذيك كمر إيسا شيخ شنتاي صاجف دعوة خبيثي قبيثة أنو هدف بان لها هدف كان لها وحويان هباران بقولي أفر يتوانك صورادات أي أقيب سما مكي مدني أن حرموه هينين سدحي لواتنك سنة النبي صلى الله عليه وسلم عقباتك وحيابه كهوري مدي يدبك أو مري يجوشي كده ما يسأن فهم سنين وحبيق ما قاديس dadka waxa ku tilmaantay inay yihiin khabiith iyo khabiithad ma dadkan social media ka eedeynaya oo dadka qaar macayantooda la yaqaan dadkaas ma khabiith iyo khabiithada inta been ku hadasha been isticmaasha been abuur isticmaasha khabiith waaye haduu nin yahay haday haweeneytaana waa khabiithad haduu wiil yahana waa faasiq haday haweeneytaana waa faasiqad nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri kafa bil mar'i ithman an yuhaddith bi kulli ma sami'a qofka waxa dimbi ugu filan wuxuu maqlay inuu ka sheekeeyo anigu television dhaqanka iyo diinta laga dhooran jooga oo umada laga wacyi geliyo dan guud looga shaqeeyo hawada loo geliyay agaasimihiisa bartamaha Soomaaliya iyo Yurub waa u taagan inay umada dhaqanka iyo diinta u ilaaliyaan waxa meesha yaal Jamaica ninka la yiraahdo saxaafadu shuruud ay leedahay television hadda joognaa agaasimu leeyahay waxa kamida qofka aad rabto inaad warbixin ka sameeyso inaad asaga horta ruqsa ka haysato oo marka koowaad labo hadii xataa ruqsa aadan ka haysan ruuxan waxa ka gudbinaysa inay yihiin wax sax ah Jamaica aniga taariikh nololeedkaygu baan ka sheegay waa biriyo ku dhashay anu waa biri kuma dhalan anu degmada Cadalaan ku dhashay degmada Cadalaan ku koray taariikhdeeda waa la hayaa dadka uu sheegayane uu leeyahay family ahaan uu ka kooban yahay kama koobni marka horta sharaf xumo inta baa ugu filan barnaamijku uu bixiyo waa kuma oo umada uu kullu gooyo been iyo kidbi iyo maran hawaabin oo kaga hadla waa tan kale waxa soo hartay nimanka fanaaniin isku sheega ee umada diin iyo dhaqan uu ilaali waayay maanta inta Nairobi inta soo fadhiistay wuxuu raba iska sheegay waxa loo baahan yahay qofku marka uu hadlaayo inuu xaqiiq ku hadlo
hadafkaygu markuu anigu uu fog yahay haddii allaahu rabbulcaalamiin 3 shay uu i siiyo caafimaadka maanta aan qabo wax laygaga duubaayo ee aan buraha bulshada kula hadlayo haddii alla ii daayo nolosha hadduu iigu sii daayo adduunyada aan joogo xuriyadda maanta aan haystana aan haysto iidile yare iyo wax lamida waxaan ballan qaadayaa in muqdisho shub ku qaban wuu hurdayaa mogta idile hadafkayga muqdisho inaan shog lagu qaban ee gabar khabiisada ayna isku luxin ayna maryaha xooran ayna ummadda indhaha iyo dhagaha ayna ka dimbaajin ayaan rabaa inaan ka shaqeeyo hadafkaygu aad u fog yahay amba Yurub ha joogaano amba Nairobi ha joogaano ama Muqdisho ha joogaano yoolkaygu wuu fog yahay inayna dadka xoolahooda naar ku ibsan show dambo ama higu qaadato sanado anu hadda waqti hebel ma dhahayo ummadda Soomaaliyeed ee shacabka ah ee Muqdisho ku nool kuwa hoteelada iska leh kuwa dhalinyarta ah ee jaamacadaha dhigto waa dad muslima habeen iyo maalin baan waxaan ugu yeeraynaa jidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam inay maraan xoolahooda inay naar ku ibsan $20 ay leeyihiin tikitka lagu jirto waa ducaatun ala abwaabi jahannam albaabada jahannam ay taagan yihiin waxaan ku baaqay in dhaqanka iyo diinta la ilaaliyo hablaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan agteeda waxay ka yihiin jawharad iyo diamond waa igu qaali gabdhihii waxaan iri dhaqanka loo ilaaliyo diinta aan ilaashano gabdhaha yaa la qaawinin gabdhuhu ay ragga ku dhax milmin maxaa majaha la haystaa hadii dhaqan wax ka yaqaanaan iidile iyo ninka la yiraahdo iyo kii wareysanay dirisle cabdi ila yare wuxuu kugu eedeynayay in aadan diin faafinin balse laakiin ama caanimo aad rabto sidoo kale wuxuu kale kugu eedeeyay in diintu nasteexa tahay oo ku dhaasheeqo haddii diinta noo sheeg si nasteexa noogu sheeg ماشي انت على قارن الله سبحانه وتعالى القرآن كيس وحكي له هي أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تطلون الكتاب أفلا تعقلون سورة بقرة عاد اسمر كان في رنو أسهل الكيس عادك سوق هذا معناه أسوح له الشيخ الدين تندعت كما أهن أستجي أو سنين بو أنا جنوا أنيا مركات تسوارتا هذا الجار أنا اللي جمره آيات هذه يحصل لقاتي المسلم من وقت هاي تفسير القرآن كذا أنا أغاني محكوجي أتأمرون فيري آيات إدليره إنه آيات إدليره آيات مسوقة أنا سوقاتي عد كيسة أسأق وحور ده هاي قفا وانسين أنا جنوا واني كرو وانسانين محكة وضع أنا وما فنان أنا هو مدة بعديه قفا أسأق وانسين محكة وضع شنطاء أول بأسأق الدين دعت كما هني الدين أسأق عانما كرو أرت إدليره جهلية هاي نينكي وركيش سوق جوريانة أسأق ولا مديه محايل أنا وفنان ميه وحما بعديه إدليره نيدي سكما هاللي كرو تيدنا كما هاللي كريو نيد الله رب العالمين بس باوك أنا ظاهر كيجا شعب كصوماليات باوك برامج كان لو يتوان سنة كجرا لو يتوان كسنة وحال يقول قينيك دقيقة شعب كصوماليات أحدود أنتوا إسكو صون نقدان أين براه إسكو قادين إسدلين مساجد مقدشو دتك تجا مرقاتية هي صحافة مقدشو مالين أنا وحبادية هاي لبارك وحن هنا إدلي ما دور iyo 10 sano asagoo baadi ka shaqeeyayaan hayna waxaan hayna asagoo haweenka ajaanibta ka iska taataabsanay nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam horta iidile iyo ku dayda mabaadi afkaar ma leeyahay anigu afkaar aan leeyahay hadaf anigu rasuul bu allah jalla wa ala ii soo diray magaciisana waxa la yiraahdaa muhammadun rasuulullah soo ma jeedi salawaatu rabbi wa salaamu alayhi asagan ku dayda nabigu salawaatullaahi wasalaamu alayhi haweenka muslimaadka markuu arko bil kalaami hadalku heshiiska kula galay markuu rabo inuu heshiisyo la galo markuu rabo inuu goob kula balamo gacanta u haatinay nabigu sallallahu alayhi wasallam illa imra'atan yamlikuha haweenay gacantiisu ku jirta mooyee gacan kala ma gacan haweenay kala ma gacan qaadin dirisle iyo ninka la yiraahdo dirisle cabdi iyo ninka la yiraahdo idle waxaan haynaa ayagoo haweenka ajaanib ah iska taataabsanay haday naqato inay halkan ka dhunkoodaan haday naqato inay habsiyaan haday naqato inay maaragtay waxyaabo isku soo dhawaadaan intaba waa dhaqan xumaday baraha bulshada la joogan waxa haray nimanka youtuberleyda oo timaha rifan dhaqanka gaalada zaahir ahaan kaga muuqdo bal maanta dadka nacayay ilaahan ugu dhaariyay bulsho muslimaadtiina fiiriya xirashadooda fiiriya xirashada qaabkay timaha u xirteen bal fiiriya nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam man tashabbaha bighayrina falaysa minna
ruuxa isku shabaha annaka khayrka inaga mid maaha markaasuu wuxuu yidhi laa tashabbahuu bilyahuudi walaa binnasaara yahuud iyo nasaara ha isku ekaysinina dirisla cabdi oo dabagaab xaafadaha ku wareega iyo wadooyinka haweenay ajnabiyana habeen iyo maalin ag fadha wax afkaaraya wax mabda uu leeyahay ayna jirin 36 sano ku gaaray doobnimo maanta inuu mustaqbal iyo reer yeesha aan ogolayn anigu nolosha waxaan ka aabaan nahay ilmo tarbiyeeya caruur tarbiyeeya ilmahaygu way qaybsan yihiin qaar haddii hamigeyga qaarna waxaan u qaybiyo quraa inay naqdaan qur'aanka iyo inay xifdiyaan qaar waxaan u qaybiyo inay naqdaan injineero qaarna waxaan u qaybiyo inay naqdaan dhaqaatiir ummadda anfacda hadafkaas baana rabaa haddii alla doono inuu ii rumeeyo waxaa haray dirisle cabdi iyo ninka la yiraahdo idlayare aniga inay weeraraan ceeb kuma ah waxa rabaa magta waxay ku saxiin inaan ku sheego dirisle cabdi iyo idlayare Allahu rabbul alamin baan qaybiyay wuxuu noo qaybiyay quraanku 3 almu'minuun almunaafiquun alkaafiruun dadku markay ruuxu munaafiq yahay muxuu dareelaa ilaahi baa ka hadlay alla wuxuu yiri almunaafiquuna walmunaafiqaatu ba'dhuhum min ba'din ya'muruna bil munkari wa yanhawna 'anil ma'ruf ya wa hablo iyo ragba alla wuxuu yiri almunaafiquuna walmunaafiqaatu ba'dhuhum min ba'd ya'muruna bil munkar dadka waxay amraan munkarka isqaawinta iyo ilaahu laga fogaada albu'du 'ani diin ya iyo macaasida oo loo degdego iyo afxumada wayanhawna 'anil ya'muruna bil munkari wayanhawna 'anil ma'ruf ma'rufkana way reebaan sida aksi waaye dadka Allahu rabbul alamin jacel maxay sameeyaan wal mu'minuuna wal mu'minaatu ba'dhuhum awliyaa'u ba'd kuwan laba dhihin wali isku yihiin laakiin hablaha muslimaadka iyo ragga ilaahay jacel wali isku yihiin isma siraan qalbiga iskala jiraan isma xasdaan mujaamala ma yaqaanaan kuwan iyagu bil iscaayha ay arkaysa in badan way dhacdaa kuwa maanta aniga shakhshantaay ahaan i haysto waxaan haynaa iyagu buraha bulshada iska caynay waxaan haynaa caaydi ugu xumeed iyagu dhaxmarayso laakiin maanta caaydoodii meelay dhigteen kaamirooyinkoodii iyo hadafkoodii iyo maskaxdoodii waxay ku mideeyeen shakhshantaay ulajeedkuna waxay yihiin inay umada baadiyayaan laakiin hadafka aniga aan baraha bulshada ka leeyahay wuxuu yahay diinta in la ilaaliyo dhaqankana umada loo ilaaliyo indhaha in aan laga afurin quraanku wuxuu sheegay bushi faman kana minkum mariidan aw ala safarin xanuunkuna loo qaybiyaa muddo la jahli yahay culumana lama xiriiriyo hawadiisu diin ka dhigtaa leesho waa shaydaane baadariye caafimaadka ruuxa fidya bixinaya ee ruqsada la siiyay loo qaybiyaa ruux caafimaadkiisa la rajaynaya oo hadduu dhakhtar u taga dabiib hela hadduu daawada qaatana Allahu rabbul alamin oo caafimaad sii doona sida rajada bini aadamku ay qabto ruuxa waxba ruqso qaadani maalinkuu bugsoodo soomi idlayay wadaadahu u tagay Nairobi culimo waaweyn oo aan aqaano asxaabna joogo Dr. Aadana joogo Sheikh Maxamed Cabdi Umala joogo Sheikh Xasan Xuseen joogo yuu u tago wax weydiiyay inuu jiriya soo laga yaabo ciido wax weydiiyay ma leh inuu jiriya soo laga yaabo may fidyada ruuxa laga bixinaya ruuxna ruqso qaadanaan ku waa cuni gabadha uurka leh ruuxa musaafirka ruuxa xanuunsan ruqso qaadani uu cuni daawo dhakhtar uu dagi uu isdaaweyni daawada markuu qaato oo raysto wuu soo qadaynaya ruuxna waa ruux xanuunsan caafimaadkiisa aan rajo laga qabin fidya laga bixinaya ruuxa waxa loo baahan yahay idlayare labadu yahay macdee dhakhtaraan u dakay raysa maysid baa la yiri macdee indhaha miriq indhaha wuxuu ku koray moogtahay mala waxay wuxuu ku koray iyo dalac bilaash hatta marka qaar noloshiisa hatta beenuu ka sheega anigu 3 maalmood waa gaajo kara aniga hadda kula hadlay maxay anigu gaajaan ku soo koray aabahay faqiir buu ahaa asixta markuu hadlay aabahay ku soo karo ma dhihin hadda maahan wariskan maahan been buu ka sheegay waxa cadeeyay indhaha miriq indhaha wuxuu ka wadaa barqadii markaan gaaro tabarta iga tagta waxa indhaha ina madoobaadka xakeena
gaajo amba waxaa keena fitamiinada qaar inay qofku ku yar yihiin oo jirim keen kartay sida dhaqaatiirta jirim keen kartay jirada haday keeni karto hataa indhaha ma loo afuraa ha gartay indhaha looma afuri karo ha gartay qofku inuu xanuun jiraa haddii indhaha lagaa haayo gurigaaga ma intuu ku sugnaatid salaadaada fadhi iskaga dukatid juuskaaga quraanka ma akhrisatid la yare waxa baraha bulshada ka socdo uu arkaabe indhahan lagu arkaayo ee ii sheeg mobilka la salaaxay aan soomka lagu soomi karin xay ahay waxaas wadaadada kale lagu sheego aniga walamaan